السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا قيمة بدن كحرن جنال كامل تكنولوجي اسكسو نقطة نكسن إن شاء الله تعالى بانتو حينو قادونا 10 كتابات إنو كبرنين داتابيسكا قاصدا لغة SQL 10 كان 10 كي كهري وحينو رو صبرني سيدا أبديت لو سمايو تابلكا sidoo kaleeto waxaynu soo baranay sida delete statement loo sameeyo fadlan haddaad soo daawan cashirkan cashiradii ka horeeyay dib u soo daawo maxaa yeelay waxa ku waad ka doono inaad la qabsatid cashirkayna maanta insha Allah waxaynu ku qaadan doonaa ciwaan aad iyo aad u muhiim ah haddaba muxuu yahay ciwaankan waxaynu qaadan doonaa maanta insha Allah alter statement haddaba waa maxay alter statement shaqada ugu weyn ee qabato waxa weyn inay modify ku sameeyso column-ka alter statement it is to make the modify the column-ka ayay wax ka bedeshaa waxaynu baran doonaa insha Allah sida column cusub loogu soo daro sidoo kaleeto sida column-ka loo burburiyo haddii aan u baahno sidoo kaleeto modify inaynu ku sameeyno column property waxa loo yaqaanaa data type uu leeyahay column-kaada aynu isla aragno practicada comment ayaynu saari doonaa marka horeeto waxaan dhihi doonaa adding new column table hore u jiray sidee baa ugu soo dirsan karaa column waxaynu isticmaali doonaa alter statement alter markaynu dhahno kadib table ayaynu dhihi doonaa table-ka aynu wax ku soo darayn ayaynu sheegi doonaa student 0 sidoo kale intaas markaynu dhahno waxaan dhihi doonaa add waxaad ku soo dartaa column-ka aad ku soo daraysid magaciisa ayaynu sheegaynaa hadda waxaynu noo samaysan student ID student name student age student address haddii loo baahdo ardaygan class-ka uu dhigto column ah waynu ku soo dari karnaa waxaan isticmaali doonaa alter statement waxaan dhihi doonaa alter statement kadib table-ka aad wax ku soo daraysid magaciisa sheeg kadib waxaad hadda add igu soo dar kadib column-ka aad ku soo daraysid magaciisa waxaan dhihi doonaa hadda class markaan dhahno column-kan data type-ku ku yeelo doono si data type-kiisa waxaan ka dhigi doonaa varchar xarfiyo number isku jiro oo uu dhifkiisu yahay content waan execute gari doonaa command complete successful soo jidid ba hadda waxaynu ku soo darnay column lagu magacaabo class balse column-kan xog kuma jirto hore ayaan u soo baranay sida xog loo soo geliyo column-yada waxaan dhihi doonaa update waxaynu u baahannahay inaan column-kan xog isku wada mid soo gelino soo waqtiga nagu dhamaanin waxaan dhihi doonaa update markaan dhahno table-ka magaciisa ayaynu sheegi doonaa student 0 table magaciisa markaa sheegtid meesha aad wax ka bedelaysid set markaan dhahno column-kan ayaanu rabnaa inaan wax gelino column-ka magaciisa sheeg class dheh kadib xogta aad gelinaysid hadda waxaynu wada gelin doonaa whole one xog isku wada mid ah kadib waxaan dhihi doonaa execute array 7 row affected kadib waan soo akhri doonaa soo jidin ba hadda xogtooda noo soo wada gashay ciwaankayna xigo wuxuu noqon doonaa sida loo drop gareeyo column aynu soo gelinay si loo drop gareeyo loo burburiyo waxaan dhihi doonaa column-kan aan xogta soo gelinay iskama drop gareey doono column dheeri ayaynu ku darsan doonaa column-kana waxaan dhihi doonaa inta email varchar content execute gare waxaynu u baahannahay hadda column-ka aynu ku soo darnay inaynu ku practice gareyno oo aynu ku drop gareyno column-kan email dhahay aynu drop garey doonaa waxaynu dhihi doonaa si aynu u burburino column-kan alter kadib table name table-kaada magaca uu leeyahay student 0 kadib waxaan dhihi doonaa drop markaanu dhahno column waxaynu burburi doonaa waa
column markaanu dhahno waxaynu sheegi doonaa column-kayna magaca uu leeyahay. Column-kayna hadda waxa waaye email kadib execute garee command complete successful. soo jeedidba hadda waa aynu delete garaynay column-kii. sidee wax loogu bedelaa column-ka properties ku leeyahay data type waxaa loo yaqaanaa column-kan email markaanu soo abuurayno waxaan dhahnaa waxaa i siidaa varchar email waxaa la soo geli karaa oo keliya ka kooban xarfo iyo nambaro. data type-ka sidee loo bedelaa? data type markaa bedelaysid waxaa muhiim inaad ogaatid data type-kaada uu leeyahay table-kaada. saa ogaatid tag database-ka kadib kasii dooro table markaad dooratid database-kaada doortag. database-kaada waxaa dhihi kartaa inaad tiraahdo design tus sida uu naqshadaysan yahay. saa ujeedidba table-kan student ID wuxuu leeyahay integer data type-kiisu waa integer data type column-kan ayaa la dhahaa. sidoo kale waxaa ku ogaan kartaa inaad tagtid table-kaada kadib aad table-ka aad sii furtid. table-ka markaad sii furtid columns aad sii furtid column markaad furtid waxaad arki kartaa data type-ka uu leeyahay. si aad wax ugu bedeshid data type-ka uu leeyahay column-kaada waxaad dhahaysaa alter kadib table name sheeg table-kaada magaca uu leeyahay student 0 kadib waxaanu sii dhihi doonaa alter ayaa dhahay table name alter kaleet ayaa soo gelinaa maxaa yeelay waxaan u baahanahay inaa kow table-ka wax laga bedelo. table-ka marka wax laga bedelo inaa column-ka wax laga sii bedelo laba meel ayaan wax ka bedelayaa sidaas darteed ayaa laba alter u isticmaalay. kadib column markaad tiraahdo column-kaada magaca uu leeyahay class anaga waxaan u baahanaa hadda inaa data type ka bedelno class-kan data type-kiisu waa varchar content array. waxaanu ka dhigi doonaa varchar halkaa uu ahay content array waxaanu dhihi doonaa oo keliya 20 array. waana execute gari doonaa command complete successful. refresh the data type-ka database-kaada table refresh ka sii dheh soo fur column-ka sii tag. sida u jeedidba hadda 20 array aanu kasoo dhignay data type-ka uu leeyahay class column. insha allahu tacaala cashirkan intaynu ka doonaa waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.